السلام عليكم soo dhawaada kanaalkeena muuqaalkan maanta waxa uu ku saabsan yahay oo uu ka hadlayaa dalka Eritrea inta aan u gudgelin muuqaalkan fadlan subscribe saar siina share garay si aad u wadaagto asxaabtaada maadaama uu aanu channelkani gaarin kun subscribers waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagto asxaabtaada si ay subscribe u saaraan iyagana ay u faa'iidaan يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن. Eritrea waa dal dhaca bariga Afrika waxa uu ka tirsan yahay dalalka lagu magacaabo Geeska Afrika. Eritrea waxa uu xuduud la leeyahay 3 wadan oo kala ah Ethiopia, Djibouti iyo Suudaan. Eritrea waxa ay dhinaca galbeed xuduud kala leedahay dalka Suudaan, dhinaca koonfur waxa ay kala leedahay dalka Ethiopia, dhinaca koonfur waxa ay kala leedahay dalka Djibouti, dhinaca bari iyo waqooyina waxa ka xiga badda Cas. Waqtiyadii hore dhulka Eritrea iyo waqooyi Ethiopia waxa maamuli jiray boqortooyada la oran jiray boqortooyada Aksum. Muddo kadib Eritrea waxa gacanta ku qabtay maamulkeedii boqortooyada la oran jiray Midri Bahri. Sanadii 1988 ayaa dhulka Eritrea waxa qabsaday gumaysigii Talyaaniga. Wixii waqtiga ka dambeeyay Talyaaniga ayaa xukumi jiray dhulka Eritrea ilaa laga gaaro dagaalkii labaad ee adduunka taas oo uu Talyaaniga iyo xulafadiisa lagu jabiyay. Dagaalka markii laga adkaaday ciidankii Talyaaniga ee 1942 Eritrea waxa maamulkeedii la wareegay gumaysiga Ingiriiska oo ilaa 1952 gacanta ku hayay. Go'aan ka soo baxay golaha guud ee qaramada midoobay 1952 ayaa Eritrea waxa uu ogolaaday in ay dhisato baarlamaan wakiil ka noqda shacabka iyo ismaamul hoose, balse arrimaha kore iyo difaaca ayaa loo dhiibay dawladda Ethiopia oo awood loo siiyay inay gacanta ku sii hayso muddo 10 sano ah qaab federaal ah. Sanadii 1958 Eritrea waxa ka bilowday dhaqdhaqaaq iyo abaabul lagu abuuray jabhado xornimo doon ah. waxa abuurmay jabhad la magac baxday dhaqdhaqaaqa xoreynta Eritrea. Ururku waxa uu inta badan ka koobnaa arday xirfadlayaal iyo aqoon-yahano. Waxa ay hoolanayeen dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo qarsoodi ah oo lagu talagalay in la iskaga caabiyo siyaasadaha dawladda Ethiopia. 1 September 1961 jabhadda xoreynta Eritrea oo uu hogaaminayay Xamid Idris Cawatit ayaa ku soo biiray halgan hubeysan ee lagu raadinayay madax banaanida. Sanadkii 1952 oo ah xilli la filayay dadweynaha reer Eritrea inay helaan madax banaani dhameystiran ayaa boqortooyadii Haile Selassie oo uu talinayay Ethiopia waxa ay baabi'isay baarlamaankii Eritrea waxa ayna dhulka Eritrea si toos u hoos keentay. inta kadib bahadihii abuurmay waxa ay bilaabeen halgan iyo dagaalo oo ay kaga horjeedaan gumaysiga Ethiopia. Halgan dheer kadib oo sanado qaaday kadib reer Eritrea waxa ay ku guuleysteen inay madax banaanidooda helaan 24 May 1993. inta waxa ku soo koobmay taariikhdii dalka Eritrea. hadda aan u guda galno waxyaabaha ku saabsan dalka Eritrea. baaxadda dalka Eritrea ama dhulka dalka Eritrea waxa uu gaarayaa 187,600 kiilomitir square. tirada dadka Eritrea waxay gaarayaan 4,954,645 qof. caasimada iyo magaalada ugu weyn dalka Eritrea waa Asmara. Eritrea waa
dal luuqado badan leh balse ma laha luuqad rasmi ah ee u go'san dalkaasi liajli sinaanta luuqadaha Eritrea oo idil waxaa jira luuqadaha shaqada sida Tigrinya, Arabi iyo Ingiriiska. Eritrea waxa ay xubin ka tahay ururo ay ka mid yihiin urur goboleedka IGAD, Midowga Afrika iyo ururka qaramada midoobay. Eritrea waxa ku nool qoomiyado kala gedisan sida Tigrinya, Tigray, Kunama, Saho, Bilan, Rashida iyo Afar. dadka reer Eritrea qolkiiba 50 waa dad muslim sunni ah. beeraha ayaana ah meesha ay ka soo gasho dhaqaalaha ugu badnaan. lacagta laga isticmaalo dalkaasi Eritrea waa nakfa. intaas iyo muuqaal kale intay ku kulmeen. Wassalaamu calaykum.